gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ayaanu maanta waxnu ka weydiinay arinta khilaafka buurta Siimoodi oo rag ay loo soo xidhay kuwaas oo ku xidhan xabsiyada Hargeysa iyo magaalada Boorama. gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax oo aan ugu horeyntii weydiiyay gudoomiye Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax bal waxaad nooga warantaa arinta deegaanka buurta Siimoodi iyo rag la soo xidhay xaalkii arinkaasi xagu wax marayaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. markaan halka idin soo warrabo ragii la soo xidhay hadda soo deynay arrintan xalkeedii baan ku jiraa. kolka gudoomiye maxaa raggan lagu soo xidhay oo ay sameeyeen oo dibyo lagu soo eedeeyay? waxa lagu soo xidhay horena waa tii loo sheegay maayirka degmadu uu ka hadlayay waxay ahayd uun arrin is-hortaag shaqo hase yeeshee kolley qaabka loo buunbuuninayo may ahayn hawsha odayaashiina waan iska aragnay in aanu si insha Allah dhamaystirnaa ayaanu ku dadaalayna insha Allah. Axmed Deriye Ciltire shabakada wararka ee xeega news.com magaalada Boorama.